salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkanina waa taar t v daawade ku soo dhowaada barnaamijkeennii waxweydiin ogaal ka sheegne. qodobada war iyo wacalan idinka hayna carreedeg waxaa ugu dooro dowladda etoobiya oo qaadhaan taageera u doona ugu yabooday somalilan ina ciddin oo xidhxidhay wixii habar jeclo ka ceelhaysay berbera garaadadii dhulbaante oo xaalkoodu yahay ninka xalayto qowdhamay raguu qalanayuu sheegay qardho iyo qayaadsame inuu qabanayuu sheegay siciid cabdilaahi deni oo soo tubay geelkiis iyo xantasaa ka mida golihiisa wasiirada somalilan oo sheegtay in wiilka ka qalin jabiya dugsiga sare loo dhigi doono ceelka taybey 6 sarkaal oo somalilan tababar ugu dirtay daanbari taliyihii etoobiya ee xerada goojaam oo guriga lagu qalay abiy axmed oo suuraafeynaya inta ka dhexda tansaaniya ilaa carro sawaaxil bilaadamiir oo lagu harkaayay isagoo taagan balli toodho iyo weliba wixii col joogay dalka kongo oo ku dambeeyey fiinfiridhay wararkaasi iyo wararka oo dheeraad ayaanu idahaynaa ee ku soo dhowaada barnaamijkeen. waanid miyaad ka warartaa muuqaalada ubadkaagu ka daawadaan moobilkaaga ma rabtaa in ubadkaagu daawado barnaamijyo anshax iyo aqoonba leh u soo deji abka barbaar t v oo ay ku jiraan barnaamijyo tayadooda la hubiyey oo carruurta soomaalida loogu talagalay. barbaar t v waa farxadda carruurta. kooxda guntiga gaaban ee dalka yeman ayaa hadur ku tilmaantay inay booca kala gooyeen dhagaatiyadii xambaari jiray aaladda internet ee daadsanaa agaha badda cas iyo dhudhubka baabalmandab. ninka ku magacaaban wasiirka isgaarsiinta ee reeraha sanca ayaa sheegay inaanay wax daqaamaha u geysan ama aanay faarfaarin xadhkaha qaada maayadaha dhuugaalka soo tebiya ee ka soo tallaaba dhinacan iyo badyarada cadmeed. wuxuu ku dooday inaanay ahayn qaar ku taba doonan kara ama shanta la geli kara waxaanay waxba uga cabbin ama aanay sakaara ka biiqsan. wuxuu bitiyey inaanay ahayn shufto iyo haayirin dab la koodhaadhaysa balse ay yihiin dowlad dhinac kastaba ka dhammaystiran oo abbaarteeda aan ka habaabaynin. wuxuu tibaaxay inay soo dhowaynayaan cid kasta oo dhaaddaadaysa ama kabkabaysa xadhkaha meesha ku mudhaxay ama ku baaliyoobay. wuxuu tilmaamay inay iyagu cadow la yihiin duulka reer bogox ee laga fadhi'i waayey kuwaasoo uu ku seebiyey daraan mudnayn in gebi ahaanba loo jidhdameero ama loo noxo. ciyoon ayay ahayd markii ay soo baxeen xogaha sheegaya inay kooxda xuutiyiintu amley u qaadeen xadhkaha maayadda soo jiida ee ku soo libdha sida tan iyo dalka jabuuti. arrinkan ayaa daba kuutinaya weerarankaagii ay kooxdani ku heylaysay ama ku halgaaday doomaha iyo huudhiyada reer bogox ee agahaasi gurguuranaya. iyana dowladda etoobiya ayaa la sheegaya inay waddo qorshe ay 18 dal oo afrikaan ah kaga dhaadhicinayso milgaha iyo muunadda somalilan leedahay. wararka ayaa intaa ku daraya in dhowaan markii ra'iisul wasaare abiy gaadhay dalalka kenya iyo uganda uu hogaamiyayaasha dalalkaasi horbooda kala jalbeebtay arrimaha jamhuuriyadda somalilan taasoo ay u guuxeen ama ay madaxa u ruxeen yuweri museveni iyo william ruuto gaar ahaanna wixii uu dhegta u saaray ama uu dhegta ugu sheegay ra'iisul wasaare abiy. wararka ayaa tibaaxaya in etoobiya baali qaadaynayso guud ahaanba dalalka afrikada bari afrikada galbeed afrikada waqooyi afrikada koonfureed iyo afrikada dhexaba. waxaa la sheegayaa inay halkaasi etoobiya gaalaa bixinayso wafdiyo heer sare ah kuwaasoo ugu tun weyn yahay wiilka burka u tuura reeraha xabuushada abiy. dowladda etoobiya ayaa la sheegayaa inay gunta ka soo tarayso wafdi mug leh oo ay dhowaan u uli doonto dheeggan iyo qaaradda eeshiya gaar ahaanna dalalka shiinaha filibiin hindiya singabuur iyo qaar kale tiyo ay dheer yihiin dar ugu tiigi doona sida tan iyo dalalka ruushka iyagoo qoobinaya ama doonaya inay soo xerogeliyaan dadyowgaasi islamarkaana ay u sheegaan qarannimada somalilan. dhanka kale waddamada imaaraadka carabta ee midoobay ayaa la sheegayaa inay dhowaan hidin doonaan tallaabo taasi la mid ah oo ay ku dhex gelayaan maraweynta carbeed iyo xukuumadda ankara oo ay xidhiidh dhow lahaayeen. jeesaska midoobe ee imaaraadka carabta oo si dhab ah ugu daaban xukuumadda ra'iisul wasaare abiy ayaa dalalkaasi ka yaahin doonta aqoonsi ay kula diidaan somalilan oo gaarkeeda u tasmaysatay dhowr iyo 30 ku hortood. dowladda imaaraadka carabta oo la og yahay inay haabada magaalo xeebeedda berbere gelisay maadh iyo lacago tirabeel ah ayaa arrintaasi uga gol leh sidii ay u hanan lahayd 120 milyan ee qof ee madax madow ee ku ayooda reeraha xabuusheed iyo weliba dalalka etoobiya ka xiga goonyaha hareeraha gadaalaha barbarada dhinacyada iyo dheegaga islamarkaana ay dhammaantoodba duulkaasi wax kala soo degaan marsaweynta gobolka saaxil. imaaraadka ayaa damacsan inuu dalka somalilan ka hirgeliyo waxqabado taag iyo mar leh kuwaasoo waddooyin leh oo dhabbooyin leh oo jidad leh oo ballaarin leh oo fidin leh oo cusboonaysiin leh oo dibidhisid leh oo weliba ay ku jiraan jidadka ay raacaan hangaraaraca.
wiilkaad nagala socotaan waa taar TV xogayaha dowladda hoose ee degmada Berbera Suhayb Maxamed Cali oo uu daba ambuulan yahay duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin ayaa booraan dawacooyin ku dadweeyay xubnaha ay shalay doorteen dabatada iyo qaansalida iskaashatada kalluunka Berbera kuwaasoo kala gudoomiyihii kalluumaysatada Maxamed Colaad Cali iyo ku-xigeenkiisii Maxamed Cabdi Kaahin iyo weliba xogayihiis miskaansatada kalluunka Cabdi Cali Barre waxaa la sheegayaa in xogayaha dowladda hoose uu warqad ka soo goostay geestan iyo xeeraalinta gobolka Saaxil maadaama ay isku beel ka soo wada jeedaan taliyaha qaybta ibliiska gobolka Saaxil duqa degmadaasi iyo weliba taliyaha ciidamada xuuraanka iyo dabagalka gobolka Saaxil xogayaha dowladda hoose ee degmada Berbera Suhayb Maxamed Cali ayaa gunta ka soo talay in xubno ka soo jeeda beesha Maayir Cidin hoggaan looga dhigo kalluumaysatada Berbera iyada oo xogaya Suhayb Maxamed Calina laga soo sheegay inay ka soo yeedhay xukuumadda Muuse Biixi sideed kalgeel ayaa u hadhay wadan la shaqeeya in la wada jiray xogayaha dowladda hoose ee degmada Berbera iyo duqa degmadaasi Cabdishakuur Maxamuud Cidin ayaa weji ka sii samaysanaya xisbiga wadan iyo xukuumaddiisa soo socota haddii doorashaba dhacde wiilkaad nagala socotaan waa taar TV iyo wararka ka soo baxaya ceelka Laascaanood ayaa sheegaya inay qaylo uga hayaan garaadadii beeraha dhulbaantay kuwaasoo wadnaha farta kaga haya duulaan lagu dhadhaaro maadaama ay isla soo taageen waxaynaan ogeyn oo aynaan ka warqabin waxaa la sheegaya in loo riday babiso buyuur bayr iyo baqdiintaag iyo tukurle garaad Cabdirasaaq Garaasofo Duran oo ka hadlay meel la isugu soo ururiyay dhaawacii ka soo doogay dagaaladii ka giglaasay Laascaanood ayaa ka durantay madaxweyne Biixi inaanu ku soo ekaynin dooyo iyo dabrcelin uu ku soo taabanayo ceelka Yoocada wuxuu soo jeediyay inuu ka joogo haddii aliye la yahay oo loo soomo oo loo salaado gaar ahaan weerar uu ku soo ekeeyo sida taliya Laascaanood wuxuu tibaaxay in haddii ay ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo laabtaan gooja cadde way ku soo ragaal celin doonaan oo laga qaxo Laascaanood oo laga xaymarto Buuhoodle oo dhasha afka lagu qaato ay imaan doonto Soomaaliland oo marun ileen waa la yiraahdaa ka baxda deegaanada beeraha dhulbaanta iyadoo kabna lulaysa midna laalaadinaysa wuxuu bitiyay in xaalkoodu yahay col hortii jabay isagoo dhinaca kalena biniixiyay in lagu soo maqan yahay oo madanaha dabka loo geliyay oo ay ku dhici doonto xaar direesh iyo haanta hadhubla wararka aan hayo maamulka Soomaaliland wuxuu qaban qaabinayaa inuu inagu soo duulo waliba wuxuu inagu soo duulay si degdeg ah ninka aan ogow idinkuna ogaaday inaanu idin ognahay si degdeg ay u soo duulayaan hub badan iyo rasaas badan way diyaarsadeen innaga laakiin ka hub iyo rasaas badan horta dadka aad ku soo duulaysaan waxaan idin sheegayaa waa dadkii aad halkan ku dagaalanteen ee aad islahanka weynaydeen ee iyagoo aakaysita iska kiin celiyay oo quwadooda aad u xoog badan tahay horta arrintaa ogaada barbarka kale garaad jaamac garaad Cali oo loo garan og yahay gala dagaalka ayaa isaguna isla soo jacfeeriyay inay mar labaad Soomaaliland ku dhici doonto waxa baalahayga yaacay halka uu ismoodsiinayo maamaadii Soomaaliyeed ee ahayd libaax laba geed lagama wada kiciyo ilaa iyo iminka lama oga meesha ay wax ka arkeen ama maqaarka ka ursadeen garaadada beeraha dhulbaantay iyo waxa ay tusay ama ay soo madoobeeyay sidoo kalena ku sameeyay saamajiidka iyo gurguurashada ama bahumbaaleynta isla markaana geeysiiyay garaadada inay sida fiinta uga ubateeyaan jirka ku soo socda iyo waliba waxa la caakoodinayo inta waranay waxaanu ku darnaa ma ogin wax weydiin ogaal ka sheegnay Maxamed Aadan Dirtan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeegga internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121